عديدت يوم تبعد دوبيوي بشير عالمضو عدكنا أغديق أوبيوي هوي بشير عالمضو عدكنا أغديق أوبيوي iyadoo weli si habsami ah u socdo tartanka ololaha doorashooyinka saaran ee Soomaaliland ayaa taageerayaasha musharaxa golaha wakiilada uga sharaxan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye xildhibaan Bashiir Xuseen Xirsi iyo musharaxiinta kale ee ku sidkan waxay maanta isugu soo baxeen magaalada Dila ee gobolka Awdal halkaasi oo dabaaldegii iyo ololihii maanta isugu soo baxeen dadweyne fara badan oo ku sugan degmada Dila waxaana isu soo bixi maanta halkaasi ka dhacay kala qayb galay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye oo ay kamid yihiin wasiirada wasaaradaha horumarinta beeraha iyo caafimaadka ee Soomaaliland intii uu socday dabaaldegga ololaha doorashada ee saaran ee degmada Dila ayaa maanta waxa halkaasi lagu soo bandhigay astaanta kaaraha oo ah midani loogu codeyn doono musharax Bashiir Xuseen Xirsi iyo waliba boodhar lagu soo xardhay nambarada loogu codeyn doono musharaxiinta isaga ku sidkan isu soo bixi fagaaraha degmada Dila ee maanta ayaa ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta heer gobol ee xisbiga kulmiye iyo mas'uuliyiinta degmada Dila maanta kulmiye halkan jooga iskugu yimid marka waxba uma dambeeyaan waxaan leeyahay hadalka badin maaye wasiiradii baa jooga qaashi baa joogta waxaan leeyahay kulay waxay noo balana farta maanta doorashadii codkii ku rididiisii maalmo yar oo gaaban bay nooga hadhay waxaan idin farayaa waxa weeyaan nin waliba meesha uu marinayo uu ku ridayo inuu ka fiirsado codkiisu khasaarin oo si fiican looga raarido oo codka si fiican ugu ridno ayaan idin farayaa sidaas ay noo ballanaysaa maaha waxaan idinka rajaynaynaa haddii Allah awoodda liidmo inaad waxaad muujiseen Dili waxay tahay waxaad muujiseen awoodda ay Dila leedahay wuxuu muujiyay xildhibaan Bashiir iyo xildhibaan Maxamed iyo saddexda xildhibaan ee kale ee la socda ee degmada Baki Jaray Geelle iyo Farxaan oo ah runtii shan xildhibaan baa degmada Dila u sharaxan waxaad rajaynaynaa haddii Allah awoodda liidmo inaad sidaa maanta aad u soo baxdeen oo ah maanta maalintii ugu dambeysay inaad haddii Allah awoodda liidmo aad codkiinana siin doontaan 31 bisha haddii la haydo alxamdulillah maanta aad bay ugu mahadsan yihiin maasabadan qaaliga inay kala soo qayb galeen idinkana waxa aan naga suganaa waxa weeye inaynu codka siino musharaxiinta xisbiga inooga sharaxan sidaa uu sheegay gudoomiyihiina waxa la doonayaa habsami iyo maartay adiyad la'aan iyo maartay nidaam fiican oo ku salaysan dimuqraadiyadda iyo akhlaaq wanaaga iyo wadajirka walaalnimada loo footeeyo maantana waxaan leenahay xildhibaanadiina ha khasaarinina meel aynu waxba ka gaadhayna khasaarinina dawlad joogta dawladaan jirin ha u dhaafina 10 sano ka bacdi waxay samayn doonaan Allahu yaclam hadalka waa mahadsantiin waxaan inagu dardaarayaa inaan xildhibaanka baarlamaanka iyo inta ka sharaxan iyo gobolka oo dhan inta kulmiye u sharaxan war maanta aad haysataan been bay sheegaana waxay yiraahdeen madaxweynuhu wuxuu yiri ninkii aniga wuxuu siiyay fartu dhexda ka qaniini meel ay ku taala ma jirto sidoo uu yirina ma aha laakiin marka wax la doonayo waa la yiraahdaa war wasiiradeena waa kuwan garab taaganayna waa kuwa xildhibaanadii aan dooranayna waa iyaga war meelaha waxba ka jirin waxba hakaynina xaakimka Bashiir Xuseen Xirsi wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanadaasi dadkaas oo dhan hogaaminaya ee xisbiga xaakimka ku soo rogay weeyaan waxa kale oo idinku sheegaynaa reer Dilaw maanta waxa way abaalkiina la idinka sugayaa inaad xisbi xaakimka iyo Bashiir iyo xildhibaanada taageertaan inaan soo saarnaa dadkeena maanta inoo jooga halkan waa inaan soo saarnaa ballanteenu taa ahaato inaan la seexan boqolkii maalmood ugu horeeyay cidii dhagaxa loo dhigay ee laamiga loo dhamaystiray waxay ahayd beesha Dila sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay musharax Bashiir Xuseen Xirsi iyo musharaxiinta kale ee ku sidkan iyagoo ugu baaqay taageerayaashooda inay codka siiyaan maalinta doorashada ee 31 May dadka reer Dila waxaad nasiib u yeelateen inaad noqotaan albaabkii laga soo galay gobolka Awdal oo aad had iyo jeer ku muujisaan shucuurtiina iyo soo dhaweyn fiican ay nagu bartay taana nasiib aad u yeelateen laakiin waxa yar jirta annagu markii aan siyaasadda soo galaynay waxaan idin sahaminay meeshaan idin geynayno
degmada dila inta badan waxay ka caawdaan horumar la'aan way jirtaa haa meelo badan way jirtaa laakiin waxa weeyaan qofka siyaasadda idiin gelaya marka hore waa inuu idiin sahamiyo waxa weeyaan horumar iyo barwaaqo ayaan idiin rajaynayaa waxaan idiin rajaynayaa barwaaqo iyo nabadgelyo maanta anigoo reer dilaada isla markaana u sharaxan xubinta golaha deegaanka ee degmada Baki oo aan isku sidkanahay Bashiir Xuseen Xirsi inaadna soo dhaweysaan oo aad ku mahadsantihiin xildhibaanada kale ee nala sharaxan aniga Bashiir waxaan kaga duwanahay laba nin oo reer dilaada nahay marka waxaan u baahanahay labada nin ee reer dilaada inaad codkana siisaan madaxda heer wasiir ee maanta inoo timiday waxa ay arkayaan indhoogu arkayaan taageerada ay noo hayaan taageerayaashayadu waa ay ku faraxsan yihiin annakuna waxaannu ku faraxsannahay sida la noo soo dhoweeyey maanta wixii ka dambeeya waxaan u diyaargaloobaynaa waa inaan goobaheennii tagno codkeennii aan u diyaargalowno taageerada aad muujiseen codkeennana aan ku xigsiinno intaasaa kolley ayaan idiin sheegayaa ugu dambayntiina waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Cumar Cali Cabdilaahi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Saad iyagoona taageerayaasha ugu baaqay inay codkooda siiyaan xisbiga marka la gaadho maalinta doorashadu maanta tii horena mid ma aha waa la yaqaanaa goob kasta inta kaadhe taalla waa tiro haada imkaad leedihiin waa inay iswaafaqaan maalinta codaynta soo badan maaha aad iyo aad baad mahadsantihiin bashiirna waxaan leenahay dee farxad waxaa kugu filan maanta degmadaadii in cod dheer ay ku tiri waannu kuu codaynay sidoo kale xildhibaanada kale degmada ka soo baxaya Baki iyaguna codkiina u baahan yihiin sababta horumarkeenu wuxuu ka bilaabmaa degmada waxaan iniga maganahay haddaan nahay golihii wasiirada ee xukuumadda hadda talada haysa ee hoggaanka u hayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inaad soo saartaan xildhibaanada xisbiga kulmiye oo uu Bashiir ugu horeeyo sidaa maanta aad iskugu soo baxdeen ee aad noo soo dhaweyseen ee aad ilaa Goriyo Cawl ilaa halka dila aad wadada isku tunteen ayaanu u baahannahay inaad calaamadda kaaraha ee Bashiir iyo calaamadaha xildhibaanka kale la sharaxan ee golaha deegaanka ee degmada aad iyaduna saasoo kale aad ugu codaysaan maalinta 31 bisha hadii la yiraahdo Ibrahim Saxufi Bulsha TV Boorama